qorshaha la degay iyo markaasi gobolka Tigreega waxa ka socda soo qaadan doonaa waxaan kala soo qaadan doonaa xaaladda ugu dambeeyay dowladda deegaanka Soomaalida oo markaasi khilaaf weyn wajahayo isku haysta haysto Mustafa Cagjar iyo mucaaradka maxay isku haystaan ay soo qaadan doonaa xuduudka Somaliland iyo SSD nimanka DDS ayaa markaas aydan culays ka jira aagga dacwale iyo xarshin iyo caalan xog cusub aydan kaga haynaa isii qaatumo oo markaas aydan dagaal iyo foodo wajahayso ciidanka Somaliland oo ka faa'iideysanay arrintaas sheegeen inay gali doonaan magaalada Laascaanood waan soo qaadan doonaa iyo raggii kufsaday gabdhaha oo markaasi maxkamad la soo taagay magaalada Laascaanood ayaan soo qaadan doonaa ninka lagu magacaabo Maxamed Ciidi Dirir oo wasiirka warfaafinta Puntland ah ayaa wuxuu si toos u waray Xamse Cabdi Barre wuxuuna sheegay inuu ninkan yahay ciyaal soos oo uusan ahayn nin ogaadeen arrintaasna falaqayn doonaa in barnaamijka shirgaray meel fogaarsiya xaaladda isqabsiga koonfurta Soomaaliya iyo Xasan Maxamed oo lagu dhagan yahay ayadana falaqayn doona ay dagaalada ka socda Shabeellaha Hoose Shabeellaha Dhexe barnaamijkaas oo dhan falaqayn doona barnaamijka kula soo saaxiibka Fargod oo aan rabo wax ka weydiiyo bariga dhexna qaybta dambe ayaan gali doonaa insha Allah Fargod barnaamijka soo dhaw marka hore waxaan ku hormaraynaa dalka Itoobiya mudooyinka la soo dhaafay Burhanu Jula taliyaasha ciidamada militariga dalka Itoobiya oo la hadlay Abiy Ahmed Amar oo siiyay waliba waxa loo yeeray Mr. Warada oo gobolka Tigreega madaxweyne ka ah kadibna waxa lagu yeeray dagaal ayaan militari ku qaadanaa dhulkiina waa inaan ka weerarnaa arrintaas maxaa ka jira أقولي هذه أدبا ما حسنت سيدو كلا وحنو ما هالعلين إن جودهان ببرشوين الصوماليات حالة إثيوبيا يا جودهان بجيس كأفريقيا وحنو ملاينا يا برجع دحاء أي دجالدي سي لو ما رلا أيه إن لفتقود جونيو أي بلعبان دونتو أو دجال كاسي دجال مهدا وماشى كده عدونه برهان الجولة وحور تجي حملة برلمان كهور تجي وحور تجو كل سراكيشة وصل رئيسة ciidamada dalkaas Itoobiya ayuu hortagay mas'uuliyiin fara badan oo ganacsatay cid walba leh ayuu isugu yeeray kulamo gooni ayuu in dhawaalaba qabanayay laakiin waxaan ku hormaraynaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa wuxuu toos ula hadlay Mr. Warada oo ninkii ahaa maxaan ku dhahaa DB ku soo magaliya madaxweynaha Tigreega ayuu la hadlay khadka telefoonka kula hadlay wuxuu u sheegay salaan kadib in dawladda Itoobiya ay weerar qaadayso weerarkan uu saqarsoonayn marka kaalinta kaga aadan Tigreega maadaama iyagu xad ay leeyihiin dalka Eritrea hadii ay ku samogoliyay kaalinta ay ka qaadan doonaan ayuu weydiiyay wuxuu kaloo sheegay in ay Tigreegu ay diyaariyaan adigrade iyo maxaan ku dhahay Salambasa iyo hadii ay ku samogoliyahay magaalada Makala gaar ahaanba Makala garoomada ku yaala in si toos ay uga duuli doonaan ciidamada militariga ee dalkaas Itoobiya gaar ahaan kuwa cirka inay adeegsan doonaan markii uu la hadlay oo arintaasi laga hadlay wuxuu yiri waxaan dib ugu noqonayaa madaxweyntii saraakiisha ee TPLF iyo maxaan ku dhahay hogaamiyaha TPLF baan dib ugu noqonayaa kadibna waxaan weydiinayaa buuri suurtagalnimada in deegaanka Tigreega si toos looga duulo oo duulimaadka ay qayb ka noqdaan iyo iyaga kaalintooda ay ka yeelan doonaan ama kaalinta ay ku leeyihiin in Eritrea lagu duulo labada qodob ayay ahayd wuxuu kala noqday labadii qodob madaxweyntii Tigreega way shireen waxayna u sheegeen gooniyow in wax kaalina oo ay ka qaadanayaan dagaalkii hore iyagu ku rafaadeen dad badan baa naga dhintay askar fara badan iyo khasaare fara badan baa naga soo gaaray dagaalka aan Eritrea ku qaadaysan nama khusayaan Itoobiya iyo Abiy aduu kaliya ku yahay waxa ku soo haray bay dhaheen in garoomada ku yaala maxaan ku dhahay deegaanka Tigreega in la isticmaalo oo ciidamadu militariga dalkaas Itoobiya inay isticmaalaan deegaanka Tigreega ayadana waa la weydiiyay isaguna wuxuu sheegay iyaguna waxay sheegeen in wax ciidan la yiraahdo oo makalakaya ama militariga dalka Itoobiya inay kaga duulaan dalka Eritrea inay mamnuuc tahay deegaanka Tigreega oo wax askari oo ciidan oo militari oo lagu arki kara deegaanka Tigreega gabi ahaanba inuu soo jirin taana way diideen Abiy uu xanaaqay markuu uu sheegay ninka Warada markuu sheegay ninkii ah Waradaha markuu sheegay madaxweynihii Tigreega markuu sheegay wuxuu u sheegay Abiy Ahmed oo marka ay wada hadlayeen annaga garanayna buuri annagaana dawladii ogaansho bay naga ahayde talaabada aan qaadayno annaga garanayne hadii aad tahay madaxweynaha dawladda deegaanka Tigreega hadaa tahay adoo dantaada iska qabso ku yiri marka walaac weyn bay ku abuurtay gooniyow nimankii la oran jiray hadii ay ku samogol yahay nimankii la oran jiray Tigreega walaac weyn bay ka qabaan oo ah tolow armi idinka weerar marka hore la idinku qaada oo idinka markii magarasa weerar la idinku qaado armi kadib uu la doonayaa Eritrea in lagu qaado mise waxa weeye uu iska kiindayn doonaa oo waxa weeye hadii ay ku samogolya deegaanka canfarta ayuu weerar ka qaadi doonaa dhanka ayuu ka weerari doonaa abiyana xogta soo baxaysa waxa loo sheegay Tigreega iyo nimanka lagu magacaabo amxaarada Tigreega iyo amxaarada oo wali mucaaradaha ka dhaqaaqaya deegaanka deegaanadii ay u dhashan ay u dhashay ka dhaqaaqaya inuu san dagaal qaadi karin oo dagaalkiisa wadan kale uu isku duuli karin arrintaasi fashil tahay marka
abiy axmed waxay u muuqataa inuu dagaal toosa oo saf ballaaran oo ku qaadi doono tigreega iyo weliba eritrea labadaba inuu ku qaadi doono xogta soo baxaysa kale ee etoobiya laga warinayo ama warbaahinteeda ay qoraysana gooniya waxaa ka mid a habka nimankan hadda yuhuudda ay u weerareen tahraan ee ah inay goobihii militariga iyo saraakiil fara badan oo ku sugnaa deegaanadaasi in ay duqeeyeen oo duqeymo ku dileen qaab noocaas oo kale ah etoobiya qorsheynaysaa oo ah marka hore inay target samayso kadibna ma garanaysaa lagu duulo magaalada asmara in lagu duulo kadibna dhulka la dhigo wax allaala wixii dhaqdhaqaaqayo oo ma garanaysaa si fiican loola dagaalamo qorshe noocaas oo kale ah ayay haddii eebahay kuusuma ogol yahay ayay wadaa waxa lagu magacaabo etoobiya dhanka kale burhanu jula la kulanka xubnaha baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta kale uu la kulmay wuxuu sheegay wadamada dariska ah inay labadii sane ugu dambeysayba dhawaaqooda ay maqlahayeen qalin inay wax ku raadiyeen qalinkiina ay wax ku waayeen laakiin hadda maanta ay taagan tahay in ay xoog wax ku qaataan inay xoog wax ku qaataan oo dalka etoobiyana uusan badla-aan ahaan karin kadibna ay fooda ka maleegi doonaan maxaan ku dhaha haddii eebahay kuusama ogolyahay dal walba hor istaaga rabitaanka badaha ee dalkaasi etoobiya marka burhanu jula wuu cadaystay waxaana shaki weyn laga qabaa haddii eebahay kuusama ogol yahay in maalmahan fooda lagu soo haya etoobiya ay weerar cad ku qaadi doonto gebi ahaanba dalkaasi eritrea ee suuragal waxaa abaa laleeyahay iyadana sidoo kale inay jabuuti weerar ku qaado oy dhankaasi la qabsato ayadana waa suuragal laakiin waxyaabaha kasoo kordha isha ayaanu ku hayn doonaa burhanu julana wuxuu sheegay inuu dulqaadkii ka dhammaaday inay in badan ma garanaysaa ay sugayeen etoobiyana ay awood u leedahay gebi ahaanba riirsida iyo wadamadan isku fujiska intaan oo idilba inay isla qabsato inay awood u leedahay marka wuxuu sheegay dunida maanta aan ku noolahay waa duni qofkii xoog le uu xabagta goosto etoobiya xoog bay leedahay ayadaana xooggeeda wax ku goosanaysa buu leeyahay fargood waa mahadsan tahay u arki doona etoobiya wixii kasoo kordho waxaan tegaynaa dhanka puntland ninkii wasiirka warfaafinta maxamuud ciidi dirir ahaa waad maqlaysay oo wuxuu yidhaahday xamse cabdi bare dhalashadiisa ayaa shaki noogu jira ciyaal soos inuu yahaana u malayna oo ninkii dhalashadiisa wuxuu yidhi waa nin wecela ogaadeenna ma aha hadalka meesha soo dhacaya haddaan afka ku balaarino marka maxay kula tahay ninkan marna sc dulminayo marna xamse bare dulminayo qofka shaksiga taargetkiisana waa qalad in lagu xadgudbo marka maxaa la dhihi karaa ninkaas horta ninkan waa nin waxa weeye qoladan reer khaatun waxay dhahaan waa horgalay dhahaan horgalka hindigay dhahaan hase ahaatee say doontoba ha noqoto qofka siyaasad ahaan waad u mucaaradi kartaa oo dowladda xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse labaduba waa loo mucaaradi karaa siyaasad ahaan waa caadi oo dee siyaasadda wale laakiin qofka dhalashadiisa waa mamnuuc in ma garanaysa wax laga sheego ninkan horta soomaalida oo dil baa garanaysaa ninkan nin heerkii ogaadeen oo lafta geela badhaa inuu yahay dee horta qof walba iska garan bidhaantiisa waad iska garanaysaa walaalihiisa joogade oo meel walba maya walaalihiiba maahaba dee dadku isku bidhaanba maaha isku wixiba maahaba nin baaba laga shakin karaa oo la dhihi karaa war ninkani waa ciyaal soos ninkan wuxuu leeyahay waxaa wadwata xasan sheekh nimankan maxaa la yidhahdaa meesha hawiye ee asaga saaxiibka la ah iyo dhami jidiid malaysia geeno waxbarasho u direen kadibna waxay geeyeen meesha la yidhaahdo waxay u direen haddana yaman ay u direen kadibna way soo wareejiyeen oo NGO ay ka shaqaalaysiiyeen kadibna ayagoo iskuulaadkooda waxda ku dhex jiray marka ninkan yaraantiisa 91 ilaa iyo hadda hawiye kama dhex bixin marka dhalashadiisa shaki ka jira marka dambena wuxuu yidhi ninkan inuu ciyaal soo siiya umalayna marka maxay kula tahay bil walba xalla ninkan markay bisha dhammaan rabto si uu mushaar u qaato meel fuula ama dowladda fuula ama wuxuu fuula ninka lida marka xamse bare wuxuu ku eedan ugu dhagan yahay wuxuu yiraahdaa shacabka Puntland way dulman yihiin oo yiri intaas oo wax lagu haysto xamse bare marka shacabka Puntland way dulman maxaa u jira intaas karbaash ugu dhacday marka maxaa la dhihi karaa lagu jawaabi karaa wala horta ninkan jawaab hadda mudan oo la siin karaa ma jirto ninkan waa ninka deegaanadii uu ka soo jeeday dulminaya wey ee ku haya khaatumo maamul ma noqon kartuu leeyahay waa dhulka iyo deegaanka asagoo kasoo baxay u nasab sheeganaya horta ninkaasi nin aan reer khaatumo waa dad gobaha aan u aflagaadayn karo horta maaha nin aan reer khaatumo aanu aflagaadayn karama iyagii baaba khaati ka taaganba ninkan horta waa fadlan igu shubo waxa uu doortay ninka lagu magacaabo Saciid Cabdullaahi Danina nin shakhsiyad la ma ah nin shakhsiyad leh wanina waxba xeerniyo u doortay ninkan 24 saac meega haysta in hadana waxba xeerinaynin sida qudunka isaga waxa isbaaya horta wax loo jawaabo maaha waxaan macna lahayn way ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare nasiibkiisa iyo kartiisa iyo aqoontiisa horta ku helay ayuu wuxuu ku helay maxaan ku dhahay ra-iisul wasaarenimada ummadda Soomaaliyeed
ummadda Soomaaliyeedna way jirtaa waa iska caadi qof walba saaxiibkiisa meesha geysan ummadda Soomaaliyeedna waxa weeyaan waa inuu cadaal sameeyo maanta waxa weeyaan si fiican uga shaqeynaya way inta tabartiisana waxa weeyaan dal Soomaaliyeed oo burbursan buu yimid intuu dhisi karana hadda wuu dhisahaya saaxiibtinimaduna de marbay saaxiibtinimadu waxay ka wanaagsan tahay walaalnimada dhalashada ka wanaagsan tahay ha haddii tusaale ogaadina wax lagu qabanayo waa marar fara badan wax lagu qaban lahaa laakiin xasan sheekh maxamuud iyo teamkan hadda uu ka tirsan yahay dawladda dalka Soomaaliya hogaaminaya ilaa 90kiiba wax wada baranayeen mid kale asii kaliya ma habade boqolaal qof saaxiiba kumanaan kun oo cid walba Soomaaliyeed ba saaxiiba waxa kala la yaab igu noqotay wuxuu yiri 91 markii la qaxay macnaha daaradku qaxeen asaga Muqdisho looga qaxay mootiginba marka ninka soo Muqdisho wax kuma laha oo soo nin Soomaali ma oo Muqdisho soo caasimad ma arrinta been ku sheegay ya arrinta been ku sheegay wuxuu leeyahay 91 waxa loo qaxay ragaas ayagoo dhex joogay marka dhalashada shaki ay jiro kama soo qaad ninkan xataa haduu qabiil kale yahay maxaa nasab dhiman maxaa ka dhigay ma qabiilada Soomaaliyeed isku mid ma ninka dhowr 90kii uu meesha tagay ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre waagiisii horena way deganaan jireen oo de nin wuxuu ahaa nabad way deganaan wana deganaan baa nin koonfureed ahaayeen oo koonfur ma garanaysaa wax ku barto yaraantiisii laakiin marbu la qaxay oo wadankii deegaanka Soomaalida ayuu martay xagga joogi jiray waagi dambana waa runtii oo waxa weeyaan taas waxa uu baran jiray oo teamku ka mid ah Yemen inuu tagay waa runtii Malaysia inuu Masar ka soo diyaariyay waa runtii inuu macadka siimad macallimiinka ah oo maxaan ku dhameeyaa soo macallimiinka ah waa runtii inuu ma garanaysaa teamkan hadda xukuumadda haysa ay saaxiibadooda oo hay'adaha u soo shaqeeyay oo isla soo jabeen waa runtii marka Xamza Cabdi Barre muddo dheer buu soo qaatay muddo dheer buu dalka Soomaaliya iyo ama hay'adu soo shaqeynayay ama maxaan ku dhahay waxbarashada dalka Soomaaliya uu qayb ka ahaa almuhim nigaas leer Maxamed Ciidi Dir waxa uu sheegay waa wax shakhsi ah oo gaar ku ah ma garanayo maamulka Puntland inay la qabaan ma aaminsani in qofka shakhsiga in la targadaro waa qalad wixii ka soo koray barnaamijyada halkan ku soo gudbina barnaamij shirgareeya meel fogaarsiya